بسم الله وفاطمة علي iyo barnaamijkeeni taxanaha caruurta waa kana buuggan oo noo soo qaaday buugga sheekada buuggan maanta waxaan ka sheekeynayaa nin shaacir ah ayaa wuxuu dhahay sheeko dhacday oo waqtiga Cumar bin Khattab radiyallahu anhu oo dhacday ayuu sheeko wuxuu ka dhigay shicir ka dhigay marka gabar iyo hooyadeed wixii ka dhacay sheekadu noo sheegaya wuxuu leeyahay هويدا waxay ku leedahay قالت بنية قومي فامذقي اللبن الماء سوف يزيد الوزن والثمن قالت لها البنت يا أماه معذرة لقد نهى عمر أن نخلط اللبن قالت لها الأم أن يرانا عمر سنيعنا إنما الفاروق ليس هنا قالت لها البنت يا أماه معذرة الله يعلم منا السر والعلن إن لم يكن فاروق يبصرنا فإن رب حفصة هنا معنا sheekadan saani sheegay waqtiga Cumar bin Khattab ee dhacday radiyallahu anhu asaga maadaama uu amiir al-mu'miniin ahaay oo dadka muslimiinta xukumay wuxuu sameyn jiray habeenkii xaafaduu ku wareegi jiray wuxuu fiirin jiray qofkii muslimka wax u baahan si uu saacido waxa la yiri habeenaha kamid ah soo socdo wuxuu maqlay sheeko ka dhex dhacday gabar iyo hooyadeeda hooyada waxay leedahay gabadha xogtirka hooyo istaago caanaha biyo ku dar bas gabadha waxay ku tiri hooyoy ilaaha noo jeediso amiir al-mu'miniinka Umar bin Khattab soo ma dhina caanaha biyaha lagu darin markaas tirmaya ku dar biyaha waxa rabnaa bari inay caanaha bato oo lacag badan aan ku helo markaas ay ku tiri hooyoy amiir al-mu'miniin wuu diiday markaas wali waxay ku haysaa amiir al-mu'miniin ma arkayo markaas ay ku tiri gabadha hadduu amiir al-mu'miniin arkeen farabbo amiir al-mu'miniin ana arkayo marka runtii waa sheeko aad u cajiib ah ma sha Allah gabadhaas yar taqwadeeda si ilaah uga cabsanayso waxaan ka faa'iideysanaynaa sheekadan laba arin midda koowaad cabsida ilaahay in mar arko shaqo la arko amal la arko sameynaysid waxaan rabaa inay ciyaalo in xasuusto ilaahay midda labaadna waxa waaye inaan barano luqadda carabiga luqadda carabiga maxaan u baranaynaa waxyaalaha loo barto waxa kamid ah because waxa waaye diinteeni iyo quraankeeni marka waliba inta yartihiin hal ugu dadaala carabiga hala barto khayran yarajeenaya assalamu alaykum